soo dhawaada daawadayaal muuqaalkaas aanu ku daahfurnay waa Rayaan Bajaaj oo aad ogtihiin in baraha bulshada ay qabsatay isbuucyadii u dambeeyay. haddaba daawadayaal waxaynu rabnaa gabadhan wax yar kooban inaan ka dhaxno kadibna muuqaalka horey aan idiin soo dhignay in aan idiin fasaxno iyo qaabka ay uga wada sheekaysanayaan iyada iyo ninsigeedii hore wixii dhexmaray Rayaan Bajaaj. balse marka hore waxaynu rabnaa wax anaga ra'yigeena ah in aynu ka dhiibano. haddaba daawadayaal Rayaan Bajaaj boqolkiisood ayaa ku furan. kiiska ugu horeeyay ugu weynaa waxa waaye kiiska maxkamadda ku socoto iyada iyo gabadhii la dhahayay Fahimo Qooje oo lagu eedeeyay in gabar kale ay dileen, sidoo kalena xitaa mar kale haddana maxkamadda loo ballansan yahay. kiiskaasi dhinac ayuu uga furan yahay. sidoo kale waxaynu ognahay daawadayaal in gabadhaasi dirjil xooggan loo geystay, muuqaalo baraha bulshada ay qabsadeen. kiis kale weeye iyadana dhan ayuu u yaalaa. haddana waxaa soo baxday in muuqaalo laga soo qarxiyo oo ay ka soo qarxiyaan raggii iyadu marka hore ay u dhaxday. haddaba daawadayaal gabadhani waxay u muuqataa mid mushkilad dhexda kaga jirta, afarta dhinacna lagaga dhegan yahay. sababtoo ah dhan waxaa kaga dhegan dowladda Kenya oo iyada maxkamad ayaa ku socoto, dhanna waxaa la sheegay in dirjilka xooggan ee loo geystay in ay ka dambeeyeen gabdha iyada ay saaxiibo yihiin sida aynu wararka ku maqalnay. dhanka kalena waa muuqaal qarxiskan ee hadda baraha bulshada haysto. haddaba daawadayaal gabadhan waxaynu dhihi karnaa waa gabar iyadu ay qaribtay, macnaha dunyadii dhan bay qaribaysaa, macnaha iyada dhan baa isqaribtay. boqol mushkiladood ay dhexda iska gelisay iyadoo isku aragto in ay tahay qof horumarsan. sababtoo ah mar waliba waxay aaminsan tahay, mar walba ay wareysi bixiso waxay aaminsan tahay in ay tahay gabar karti badan, wax walba sameyn karto. markaas tani ayaa qasbaysa marka in ay ku dhacdo dhibaatooyinkan ay ku dhacdo. waxaa jirto gabdho ay is haystaan oo aan ognahay in ay sheegtay in iyadu ay ka dambeeyeen in muuqaaladaas oo kale ay soo qarxiyaan, ama ninka hore ay isqabeen in muuqaaladaas uu soo qarxiyo, in gabdhahaasi ay iyaguna kala shaqeeyeen ama ay isku shubtaan. haddaba gabadhan waxay taagan tahay iyada ahaan nafsiyan ahaan dad cadow ah ayaa noocaas oo kale ila dhaqmayo, waana lay daba dhigtay ayay taagan tahay. halka gabdhihii iyada kasoo horjeedan ay leeyihiin gabdho badan ayay dulmisay gabadhani, sidoo kalena nafsigii ayaa hadda kasoo baxay. horta ma sheegi karno xaaladeedu iyo waxaan ay baraha bulshada haysto maalin walba ay ka hadlayso. waxaynu ognahay oo keliya kiiska saxda ah ee maxkamadda ka socdo, laakiin dadka qaar waxay leeyihiin Rayaan Bajaaj dilkii loo geystay iyada naftirkeeda in ay lacag ku bixisay, saas ayay leeyihiin. sababtoo ah waxay rabtay ayaa la dhahay in ay kaga badbaado maxkamadda ku socoto. waxay rabtaa in ay la tagto hadhow in dhaawacyo iyadana loo geystay, dadkii soo dacweystay ay iyaguna u gacan qaadeen, iyadana dirjil xooggan loo geystay si kiiskaasi uu u weynaado, iyadana xaqeeda loo raadiyo, dadkana xaqooda loo raadiyo. ama kiiskiiba halkaasi uu ku wareero oo uu fashilmo, kadibna dee maxkamaddii waxaan ay iska soo xiraan. sababtoo ah haddii kiiska kaa yaalo dadkii kaa geeyey ama gabadhii ka geysay ay dhahdo waa laysoo weeraray, gabadhaas ayaana ka dambeysay iguna soo dalbatay dadkii dilay, hadhow dacwada waxay dib ugu soo laabanaysaa, gabadhay kale ay dib ugu soo laabanaysaa. waxaana laga yaabaa markaasi in labadooda dacwadood laisku qaado. laakiin tan la yaab kale ayaa ah in iyadoo xaalad culus ku dhex sugan aan dhahday Rayaan Bajaaj in ninkeedii hore laga soo qarxiyo, uu soo qarxiyo muuqaalo, sidoo kalena xitaa cod iyadu iyo ninkeedii hore iskula hadlayaan. fadeexada adduunka ayaa haysata Rayaan Bajaaj waa la soo qarxiyay, laga hayo nin ayaa soo wacay, muuqaaladeeda ninkaasna laga daawanaya, wuxuu taagan yahay lacag ayaa rabaa, dhar ah loona lacagtaas galmoonaya haddii ayaa ku aad tilmaami bixin doonaa weydo iyo cidda soo qarxisay ayuu ku bas dhahay. oo ninkeedii hore ahaa ayaa Rayaan soo Bajaaj qarxiyay. halkeen waxa uuna iska dhigayaa bal waqti ila mid daawo kabri ah muuqaalkii hore muuqaalo talantaali ah ayaa laga soo qarxiyey. full ah ayaan hadda idin fasaxayna daawadayaal. waa ay u dhamaatay ka dhameysanaysaan muuqaalkeeda iyagoo si arkin toos waqtigan isku ma jiro hadlayaan Rayaan Bajaaj magaceeda iyo ninkeedii sumcaddii hore. Rayaan Bajaaj ay waqtiga badan gelisay.
waa uu soo dhammaaday. Soomaalida waxa ay tidhaahdaa cagtii joogsan weyda mar unbay ceeb la kulantaa. Naagtan jirkeeda tin iyo cirib la wada daawade hala yaabin, sababtoo ah dumar fara badan ayay horay muuqaallo uga duubtay, wayna ku xujayn jirtay. Hablaha muuqaalada ay ka duubtay oo dhan rakaata ayay ku haysan jirtay, laakiin hadda ayada ayaa alla ceebteeda bannaanka keenay. waxa ku dhacay Rayaan Kuuseyna waxa ay cashir iyo tusaale u yihiin qof kasta oo ummadda ceebaheeda raadiya. Hadda aan idinla hadlaya Rayaan, xaalad aan fiicnayn ayay ku jirtaa. wiil kasta oo iskaabula ah ayaana ku jimcaysanaya muuqaaladeeda oo qaawan. xogo badan oo qarxiska ku saabsan ayaa muuqaalka xiga kula wadaagi doonaa. daawada fadeexada adduunka ayaa haysata Rayaan Bajaaj, waa la soo qarxiyey, weliba qarxiskii ugu weynaa. muuqaaladeeda ayaana meel walba laga daawanayaa. Rayaan oo qaawan oo bilaa dhar ah loona galmoonaya ayaan kuu tilmaami doonaa, iyo cidda soo qarxisay. Cabbaas oo ninkeedii hore ahaa ayaa soo qarxiyey, waxa uuna iska dhigayaa waqtigan mid kabri ah. muuqaalo talantaali ayaan laga soo qarxiyey. Rayaan qoftii ahayd khalaas waa ay u dhammaatay, nin aan muuqaalkeeda arkin waqtigan ma jiro. magacii iyo sumcaddii Rayaan Bajaaj ay waqtiga badan gelisay waa uu soo dhammaaday. Soomaalida waxa ay tidhaahdaa cagtii joogsan weyda mar unbay ceeb la kulantaa. Naagtan